لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شعبك الصوماليات ميل والبو دنيا دافعة كجوغان حالي حقبا إذن لو ذاقي وحروا إنا إذن دميسترو ومدى الصوماليات ميل والبو دنيا دافعة كجوغتان سفر كي حسن الشيخ محمود مقالة كسمايو حسن هشيس وحو صوق قلي بد ماشي مرهق كتاقنا الصوماليات دحلكي ومدى الصوماليات أي لهيت حسن إنو كي يبسده حسن بدي وحرا شيء وفدك كينيان كمقالة كسمايو يمت وحكميدها وزيرك وسارة arrimaha amniga dalka Kenya وحكميدها وزيرك وسارة بدرولka ee dalka Kenya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Kenya dhamaantood magaalada Kismaayo muddo hal maalin ka hor ah ayay soo xaadireen waxaynu imaadeen waxaana elaboorka ka soo qaaday Axmed Islaam Axmed Madoobe dabadhilif عدو مدى الصوماليات ديجي عبكا أيا كسو قادي إيرابوركا حسن الشيخ محمود باتوس لوغو جيي هالكاس وحا كدعي بلي لغا عدبا كدعي هشيس كمدعيني هشيس كمدعيني دولك الصوماليات حسن الشيخ محمود شخصي أهم بودعي أسيقي أحمد مدوبي Soomaaliyay lama hadlaayo dadka maanta Kismaayo joogo wax awood ay leeyihiin Ilaahay uunta abuuray malahan lama hadlaayo kuwa xamar joogo lama hadlaayo kuwa maanta joogo Soomaaliya waxaan la hadlayaa war aqoon-yahanadii Soomaaliyeed aaway wax garadkii Soomaaliyeed aaway war badeeni sidaas miyaan ku daynaa badeeni Kenya miyaan siinaa badeeni sidaas bay gacanteen ugu baxday Soomaali inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun qofkan baan soo qabto hadii uu telefoonkiisu ismaada shaar garay barnaamij badii intaas oo sano dagaalkeeda ku jirnay badii waqtigeeni oo dhan aan siinay badii Soomaaliyeed maanta ma meel cidla ayaa Kenya ku qaadatay Soomaaliyay arintan runtii aniga waxay igu reebtay runtii waxay igu reebtay xanuun weyn oo xalay aan la seexan waay wallahi bari ma sheegayo xalay hurdadeedii way yaraad xalay hurdadeedii way yaraad war aawi wax garadkii Soomaaliyeed war aawi ummadii Soomaaliyeed dalkan lahayd war Xasan Sheekh Maxamuud dawladnimadii ma wado war Xasan Sheekh Maxamuud waa niman wax deeqin war Xasan Sheekh Maxamuud Soomaaliya wuu baabiyay war Xasan Sheekh Maxamuud dhulkii Soomaaliyeed buu iibgeeyay Xasan Sheekh Maxamuud dhaqaalihii beesha caalamka waa goosatay meelihii wax ka soo gali jiray waa la goostay dekadii airportkii lacagtoodii la aruurin jiray Xasan qaab private buu isticmaalay Xasan maanta dhul Soomaali inuu gado uu leeyahay Soomaali baan ku masruufi arrintaas arrin sax ah ma idinla tahay ummadda Soomaaliyeed arrintaas arrin sax ah ma idinla tahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wasaaradahaas oo Kenyaanka ah ee meeshaas yimid Xasan waxaan lacag ahayn lacag yar oo hadda kor roob la baahane roob le hadda kor farmaajo u diiday inuu badda Soomaaliyeed siisto uu rabay waa 200 milyan oo dollar 200 milyan oo dollar ayaa baddii Soomaaliyeed oo Norway soo dhiibtay ayuu Xasan Sheekh Maxamuud siistay Soomaaliya ku baraaruga war hada dawladnimada hadaan la wadi karin ma dalkii baa loo iibinaya ma dalkii war askarigi inuu gaajoodo iyo in dalka la iibiyo daran war askariga ha gaajoodo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wuxuu leeyahay yani maxaan mashaar ugu dhigaa ciidanka ciidamadii Soomaaliyeed maxaan mashaar ugu dhigaa
ورهاده خدي ما أنت بدأس لقضه وبني هذا لقضه حدود مالك الضم بما لقضه وردلك محاك الصهراء تلقى ودا ماتي يا سومالي ودا ماتي وحنوع عن أكلا ورمضة امتحان باكو هبصدي وردتك آوي وربطان ما يغبي الوطن ولا لا هذه الرفات كذا كون جرني قدم ما أنت كينيا لو بقول مليون أو دولار أي فوق قالتين ولا بقول مليون أو دولار لا يركي صومالي العقد يكبح صومالي العقد كبح لي كان أنا كان أكبح لي برايف الأهان كان شعب الصوماليات شعب كي يقول قرب استاجي محكمة ICJ هيك يقول قرب استاجي وروح عن قلني والرباطي عن مرني إلينكو ما أنت بدأني ميل إذاعة أيا كينيا أقوق عنكش ولا قاتي بديش يا خلاص حسن دولد مولي كرو دولد نمدي هدو ولي وايي ما هبونين إنو دولكي الصوماليين dhibaatada ka dhacday aan ogeyn oo intaasoo kumanaan qof ay u dhinteen ugu horeeyay allah u naxariista ninkii haliyeyga ahaa professor Saalixi aakhare u aaday Saalixi dagaalka baddaas darteedii maxkamadda ICJ waxaan hor istaagnay 14 bishii Maars 2022 ilaa iyo يا لواتين يكودي بيشي مارس ICJ ما هرتاقنين بدأ الصوماليات يا حدان أنا كم منافعين عرورتين سيدالي دونان إني بدو دي همتان بنصالي لكن ما أنت ما يستمدعين عدو وإلهي أنا نقونين وظالم ووحبا أنا داغينين وهم قريحون وقنا أيا بدي الصوماليات habeen hore waxaa soo kaashaday xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe oo runtii u adeega dowladda Kenya ayaa si fudud badii Soomaaliyeed qalinka loogu duugay dukumiintiyo aad u tiro badan mid Norway loo saxiixay mid Kenya loo saxiixay iyo dhammaan waa loo saxiixay markaas badii Soomaaliyeed maanta caruurta Soomaaliyeed oo baahan in maanta shidaalkeedii waliba la yiri waa in la dedejiyaa buu yiri xasan sheekh maxamuud asiga wata wuxuu sii bixiyay baa la yiri goob joogiyaalkii markaas meesha fadhiyay xogta aan helnay xogaha aan ka helnay dowladaha dariska sida dowladda Norway oo kale laga helay xogaha ay soo bandhigeen inay guushii ay rabeen maanta ay gaareen bay cadeeyeen Soomaaliyeed war hadalkayga serious u qaat inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun badii Soomaaliyeed gacanteeni way ka baxday war badii waa la bilaabi raba qodistii ceelkii war Kenya waxay mar hore maraakiibtii Norway meesha yaaleen shirkadii Stad Oil la dhihi jiray Stad Oil alaabteedii mar hore ayaa meesha la geeyay war badii waa la qodi rabaa war ceelkii Kenya way dhuuqi rabtaa war ceelkii waxa ku manaafacaadi rabo ilmahaas kukiyada iyo kalanjiinka ayaa lagu quudin rabaa Soomaaliya idinkana wad ka baahantiin badii Soomaaliyeed waa la dhiyay war mi maqashaan badii Soomaaliyeed way tagtay war badii xasan wuu saxiixay war badii way tagtay war yaa in maqlo qayladan waa waray war mi maqashaan مسحانونك بدأنا يقوها يسو قف هاي سبب مبلغاني يا وما حنوصل إذن مياه بدي الصوماليات ما ورهاني ورإلاغر يكون دار شيء دولة قبقة NGO دولة قبقة دي بأي رادي ليسو كليا فايدة دولة ضل يدد يدين وحبوها عن بينين أي إلهي لغنت نوقل شيء صومالية تنقل أي سنة والله وبالله تالله وحن كهذا اللي وقت هذا يا وكدقني أوان كهذا اللي أوان شاقني والأقوة دعدي ورتن أوكله ولقيا الله ما أنت أمدي الصومالية الحالات هذه إنا لله وإنا إليه راجعون والله بالله ويا بنا
إنا لله وإنا إليه راجعون. Soomaaliya oo dhamaatay badii Soomaaliyeed intii dhibaatadii loo maray rafaadkii loo maray maanta meel cidla ah Kenya ku qaadato wallahi waa wax la yaab warway badan ha laga deejiyo war badan ha la difaaco war dadka reer miyiga ha la hadlo war heede dal waa baabay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un حسن الشيخ محمود dalka laga gaaro Soomaaliya war hal sano lama gaarin war wax gacan noogu jira malahan war ciidankii waa la baabiyay oo dalkan difaaci lahaa ciidankii Eritrea xaafadahoodii bay kala aadeen waa la burburiyay war amnigii dalkii gacantu ka baxay niman Mooriyaan ah oo badbaado quran aan u bixinay ayuu Xasan Sheekh Maxamuud Soomaaliya ciidan ugu dhigay oo qabiil ahaan u beesgaraysan وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون سبحانه عز وجل ورهذا ورننا وحديغان لهين ورننا إيمان لهين وركني إلهي ومدن كو امتحامي صومالي ومدهوين خائن أبد الدنيا هقامي كخائن صن انتو إلهي أومي وأنن مصماسي وقف دادر تركتريزة واسع جمعهم وإسقابي مساجدي مكاغو هريا محاضرتي وادياميسا dalkii aan la xadin buu ku leeyahay ilaahay ha laga afsule ayuu leeyahay markaas asagii akoomadiisi meel wax la dhiga la leeyahay waa badii Soomaaliyeed hadaladiis waxa kamid ah habeen hore oo Axmed Madoobe markuu la hadlay Axmed Madoobaha waa cadow Soomaaliyeed waa niman damiir lahayn waa ninkii kilka shanaad gacanta ka bixiyay waa ninkii ummadan kilka Soomaaliya ee shanaad ay degan tahay xurriyadoodii ay weyday Axmed Madoobe iyo wax la halmaalo ayaa dhibaatada umadaas gumaysiga maanta ku nooshahay oo sidaas loo dhibaateynayo Axmed Madoobe wax la mid ah oo jecel in la adoonsado ayaa dhibaatada u geystay wuxuu ku yiri hadii madaxweyne hadii beesha caalamka lacag kugu aamini weeyday dalka waa in asaga isku baxnaanayaa dalka waa in badda la gadaa waa in goobaha danta guud la iibiyaa waa in xuduudaha yani Kenya waxa ku xigi doono badan hadeertan waxa ku xigi doonto waad arki doontaane Kenya xuduudeeda inay kala bar gobolada Jubbooyinka la siin doono Kismaayo ay gudaha gali doonto oo Kenya yeelan doonto war dalka laga gaaro war yaa muslimiin war yaa Soomaali ah war hala mudo xaraado war beesha caalamka baa loo diro war qoraalaha la diyaariyo war loo diyaar garoobo war badii qoladii maxay ahayd war ICJ hala wargeliyo بدأ محكمة بانا كلا صارت أنا كيو كينيا هذا وحي كدم بي كينيا وحن دقالة هين دلوه متشرتو وردال كان هلا بدبال يا صوماليا سبحانه عز وجل
xogahan ma haysaan mana ogaan karaan kuwa meelaha ka qayliyo waa xogaha seriouska waa xogaha xasaasiga xogaha qof wax bartay keliya yaa fahmi kara war heede war dalka hala badbaadi wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu